gaadiidka magaalada wuxuu noqdaa mid nidaamsan. safarka ayaa noqda mid degdeg ah oo fudud. helitaanka caafimaadka waa muhiim. nidaamkan wuxuu fududaynayaa in si degdeg ah loo gaaro isbitaallada. marka dab dhaco, ilbiriqsiye ayaa muhiim ah. nidaamkan wuxuu caawinayaa in si dhaqso leh loo gaaro goobta. gaadiidka alaabta iyo bakhaaradu waxay noqdaan kuwo si fiican u shaqeeya. nidaamkan ayaa hagaajinaya silsiladda saa. horumarka guryaha wuxuu u baahan yahay nidaam. adeegyada maaliyadeed waxay noqdaan kuwa sahlan marka goob kasta si sax ah loo yaqaan. dalxiisku wuu kobcayaa marka magaalada ay noqoto mid sahlan in la dhex maro. qorshaynta kaabayaasha dhaqaalaha waxay u baahan tahay xog sax ah. nidaamkan ayaa bixiya. musiibooyinka marka ay dhacaan, jawaab degdeg ah ayaa badbaadisa noloswa. nidaamkan ayaa fududaynaya. guri kasta wuxuu noqon karaa aqoonsi digital ah, taasoo fududaynaysa adeegyo badan. mustaqbalka, xitaa diyaaradaha yaryar ayaa alaabta kuu keeni kara, iyagoo adeegsanaya koodhka gurigaaga. ciririga waddooyinka waa la yarayn karaa marka gaadiidku helo jihayn sax ah. deegaanka ayaa ka faa'iidaysanaya. shidaalka la kaydiyo iyo qiiqa oo yaraada. maamul wanaagsan wuxuu ku dhisan yahay xog. nidaamkan wuxuu siinayaa dawladda awood dheeri ah. nolosha maalinlaha ah waxay noqonaysaa mid sahlan. qof walba si fudud ayuu u gaari karaa meel kasta. nidaamkan wuxuu dhalinayaa hal abuur cusub, apps iyo adeegyo casri ah. dal dhan ayaa isku xirmaya. nidaam mideeya dhammaan gobollada. dhaqaalaha dalka wuu kobcayaa. nidaamkan wuxuu dadeejinayaa ganacsiga iyo fursadaha. dhaqaalaha dalka wuu kobcayaa. nidaamkan wuxuu dadeejinayaa ganacsiga iyo fursadaha. dalka wuxuu helayaa sumcad caalami ah, magaalo casri ah oo tusaale u noqota Afrika. tani waa dhaxal, waa isbeddel taariikhi ah oo jiilal badan ka faa'iideysan doonaan.